haddii mar unaad ku fikiri jirtay inaad Facebook lacag ka samaysid waxaan u malaynayaa inay tahay wakhtigii ugu munaasabsanaa ama ugu wanaagsanaa inuu muuqaalkani ku soo gaaray haddaba shirkadda Facebook oo tartan kula jirta dhammaan shirkadaha dhigeeda sida TikTok iyo YouTube ayaa waxa ay ku baraarugtay in dhammaan content creatorskii oo dhani ay ka dareereen oo ilaa anigaygana aan ku jiro taas markaa waxay keentay in ay dib iskugu noqdaan sidoo kalena ay soo kordhiyaan adeegyo ay u arkaan inay kula tartami karaan dhammaan shirkadaha sidoo kalena ay dib u soo celin karaan content creatorskii ka tegay amaba ka maqnaa ku soo dhawow cilmi platform xarunta iyo madasha aad ka baran kartid xirfadaha casriga ah fadlan nagu soo biir oo imika isdiiwaan geli waqtigii hore Facebook waxa lacag looga sameyn jiray oo ugu weynaa InStream ad kaasoo ahaa in muuqaalada caadiga xaysiimo ay soo galaan taasna markaasi lacag looga sameeyo oo ahayd qaabka ugu wanaagsan ama ugu weynaa ee Facebook lacag looga sameyn jiray balse laakiin taasi waxay noqotay mid aan si hana qaadin amaba aan guulaysanin oo sidoo kalena niyad badan ay ka qaadaan dhalinyar iyo sidoo kale content creators fara badan taasoo sababtay in looga wareego dhankaasi YouTube iyo sidoo kale TikTok haddaba barnaamijkan cusub ay sameeyeen waxaa loo yaqaanaa content monetization barnaamijkani waa mid all in one ah micnaha waxaa lacag looga sameynayaa qoraalada aad soo boosti garaysid storygaaga aad soo dhigatid oo ah kan ugu weyn ee lacag looga sameeyo fiidiyowada aad soo boosti garaysid sawirada aad soo dhigatid dhammaan waxay noqon doonaan kuwo aad dhaqaale ka sameyn doontid waa barnaamij all in one ah haddaba barnaamijkani wuxuu faa'iido wacan u yahay dadyowga followerskii sidoo kale viewska fiican haysta micnaha haddii aad imika bilow tahay way kugu adkaan doontaa ilaa intaa aad heli doontid engagement fiican runtii wuuna ila fahmi karaa qof kasta oo horey usii isticmaali jiray mediaha haddaba adeegan markaad rabtid inaad dalbatid amaba aad waxa weeyaan aad aragtid in lagu soo daayay oo inaad tagtid professional dashboard kadibna aad ku dhufatid content monetization maalin dhowta ayaa la soo daayay waxaana soo dhigay markaasi story aan markaasi testi kaga qaadayo runtii waxaan arkay inuu barnaamijkan yahay mid xaqiiqo ah oo runtii lacag laga sameynay marka $5 imika arkaysaan waa $5 ee ugu horeysay aan ka sameeyay barnaamijkan wallahi beenidii ma sheegay malaha 6 story baan soo dhigay I can't believe in lacag uu sameynayo sida arkaysaan storygaasi storieska waxay sameeyeen $4 post photoyinka ama sawiradu waxay sameeyeen 0.16 videoska 0.05 yani ma soo dhigin xitaa sawir ma soo dhigin waxaan dhan ma soo dhigin kaliya story baan soo dhigay anoo tusaa bal eegaya inuu yahay barnaamijkani mid shaqeynaya so waxaan qof kasta ku baraarujinaya ama baan ka codsanayaa inuu barnaamijkan ka faa'iideysto oo weliba hubiyo inuu u furan yahay amaba uu soo bixi karo haddaba si aad u hubisid professional dashboardkaaga markaad tagtid waxaad halkan ka arki kartaa dhammaan monetizationska kuu furan oo dhan monetizationska kuu furan oo dhan markaad ka aragtid content monetization halkaasuu kaaga muuqanaya halkaasaanad kali ka siinaysaa subscriptionska starska iyo waxyaabahaas wax muhiim oo waaweyn maahan fadlan ha laga faa'iideysto barnaamijkan cusub oo runtii ah barnaamij aad u faa'iido badan leh ama barnaamij dhalinyar badan aan aaminsanahay in dhaqaale fiican ay ka sameyn karaan gaar ahaan weliba marka la eego shirkadda Meta barnaamij kastoo ay keento inta uu cusub yahay ayuu faa'iido badan leeyahay for example InStream ads berigu cusbaa faa'iido aad u fiican buu lahaa mar dambe ayuu saaid u xumaaday dhibaato badan ay yeeshay haddaba barnaamijkani waa barnaamij cusub waxaan rajeynayaa dhalinyar fara badan inuu noqon doonto il dhaqaale oo ay wax badan ka sameyn doonaan